Assalaamu calaykum. Waan idin salaamay daawadayaal meel kastoo joogtaan. Waxaan dhowr qodob ka soo qaadanaynaa sababaha aan u baranno taariikhda ama faa'iidooyinkeeda. Dhowrka qodob ee aan rabnay inaan ooga hadalno waxaa ugu horeeyo taariikhdu waa tiir ka mid ah tiirarka nolosheena iyo habfikirkeena. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay nabigeena sallallahu calayhi wasallam naxnu naqussu calayka axsana alqasas, annagaa kaaga waramayna ama kaaga qisoonayna qisooyinka kuwooda wanaagsan. Nabigeena waa la jihaynayaa oo waxaa la tusayaa dhabihii ay mareen kuwii wanaagsanaa. Haddana nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa la amrayaa inuu nooga waramo asagana qisooyinkii si aan annaguna u helo dhabihii kuwii wanaagsanaa. Alle wuxuu leeyahay faqsusil qasasa lacallahum yatafakkaruun, ooga waran qisooyinka waxay mudan yihiin ama laga yaabaa inay fakaraane. Waxaa kaloon taariikhda u daraasaynanaa cibro qaadasho. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul siiruu fil ardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin, ku dheh socda dhulka oo fiiriya siday noqotay ciribtii kuwii beeniyey xaqa. Taariikhdu waxay na baraysaa foojignaan ama is-ilaalin. Haddii aad taqaano taariikhdaada waxaad taqaanaa sidaad oola dhaqmi lahayd ama aad oola macaamili lahayd cadowgaaga, oogana fogaan lahayd gafafkii hore. Nabigeena sallallahu calayhi wasallam asoo arrinkaana baraya ayuu yidhi laa yalduqu lmu'minu min xijrin waaxidin marratayn, lagama qaniino qofka mu'minka ah hal god laba jeer. Waxaad tahay qof ibni aadam ah, hal mar waa lagu degi karaa, balse ha noqon qof mar walba la dago ama ku laalaabta hal khalad. Barashada taariikhdu waa xasilooni ama deganaansho nafeed iyo walwal la'aan. Waxaa ku soo maraya dhibaatooyin ama caqabado, waxaad eegaysaa dadkii kaaga horreeyey oo maray kana gudbay oo guul. Taariikhdu waa keyd ummad ay leedahay. Waxay ilaalinaysaa taariikhda, dhaqamada iyo raadadka muhiimka u ah ummad kasta. Ummad aan taariikh lahayn waa ummad aan waarin ama burbur iyo dhibaatooyin soo laalaabta aan ka bixin. Taariikhdu waxay ka mid tahay meelaha laga soo weeraro ummadaha. Barashada taariikh ay leedahay shucuub waa ogaanshaha fikirka, siyaasadda iyo nolosha shucuubta. Gabagaba iyo gunaanad, ummadeena Soomaaliyeed taariikhdeeda waa mid aan fara fiican ku taagnayn ama liidato, waana waxa aan oogu laalaabanayna khaladaad hore loogu soo baaba'ay. Waxaan rajaynayaa inaan helo qorayaal dadaal ku bixiya sidii loo heli lahaa taariikh noo noqoto keyd aan ilaashano oon ku faano. Halkaa ayaanu kusoo gabagabaynayaa. Subscribe calaamada gambalaalkana furo lana wadaag asxaabtaada kale. Mahadsanid.